madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa wareegtadan ku magacaabay 4 wakiil oo Soomaaliland u fadhiyi doona dalalka ay Soomaaliland la wadaagto xiriirka dhaqaale iyo ka siyaasadeed maariyo cusubna u magacaabay haamaha kaydka shidaalka qaranka wareegtada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo saaray ayaa u dhignay sidan markaan arkay dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisa 9aad markaan arkay aqoontooda kartidooda iyo waaya aragnimadooda markaan ku qancay inay hanan karaan mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan qaran markaan sameeyay la tashi ballaaran madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay in Baashe Cawil Cumar laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Kenya Xasan Hirad Yaasiin laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Soomaaliland ee dalka isku tagay Imaaraadka Carabta Bashiir Sheekh Cumar Good in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Soomaaliland u fadhiya dalka Mareykanka Cabdilaahi Cabdi Cali Dakar in laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado ergiga gaarka ah ee Soomaaliland u qaabilsan urur goboleedka horumarinta iyo xidhiidhka bulshada ee bariga Afrika ee EAC in Xasan Maxamed Ibrahim Embassy laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado maareeyaha haamaha kaydka shidaalka qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu ku yiri wareegtadiisan waxaan u mahad celinayaa muddadii uu xilka qaran hayay wakiilkii hore Soomaaliland u fadhiyay dalka Mareykanka mudane Rashiid Maxamed Nuur Garof wareegtada ka soo baxday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxa ku seexnaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi